koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan saad u hesha xubinta kalamaan maalin walba fadlan subscribe sarbeejkan dulmidiid media reer kalamaan may war haytan geedka wilaayayaal may hayta midka haysid midka ku xogaanaya nin sheegdo maynka dheganta kaaga sheekaygu waa ku xogaa war idinka war ma haysaane labadii nolol waxay diyaarinaysaa xuska maalmaha xurriyadda ra-iisul wasaare khayrana guddi uu magacaabay wasiiro ay ku jiraan hadda xorriyad u diyaar garooba masaar madib mawardi oo mawardaday oo la saleeri war maxaa xurriyad la xusaa dadkii shacabka ee waddanka u dhashay aaba weysan wadda ay maraan ma waxaa ka wadaa dalku xor maaha war sida aad rabto u qaada wayaaya waa iska murantaane cadowga ugu daran ee shacbiga ma taqaanin horta lacagta waa saaxib lacagta war maahana waa madax kursigeeda ilaashata war isan dhow ma kasnay xaan cunaa yaanka daron war cadowga ugu daran ee shacabka waa Kenya iyo Ethiopia war cadowga ugu xun ee shacabka waa dhagaxda jidka taala war yaabtan oo kale arkay wuxuu rabo iska sheegaya war ma lacag cadow waa jirta war yaa cadowga ugu xun shacabku waa ciidan aan shaqadiisa aqoon warwariye xuseen cabdillah oo ka tirsan raadiyo kulmiye dhowr jeer uu la kulmay daacadii maantaas ugu dambeysay asagoo u soo socda xaruntiisa shaqada ayay askar waxay u geysteen jirdil hanjabaad gaarigiina laga jajabiyey rasaasna lagu furay malahan markii ugu horreyso dhowr jeer ayaa wariyaha sidaan loo dhibay asagu mucaaradka u waraysta muu iska daayo war lankakanoo mucaarad iyo muxaafad malan fidhiyo dogomay dheega jiray walaashay waan daad wiinta markantii kookal iyo kadifa lahayan iyo badilido hayan war 2019 sidii loo gudugalay ciidanka wareesha lagu diray aniga kamid ah dhigta li dilay maskiin adimay ku dileen warnimada waxaan maleynaya ciidanka hadda jira shacabka inay difaacaan looma sameeyne kursiga inay difaacaan baa loo sameeyay amisoomna nabad ilaalin looma keenin dalkaane faragelinta shisheeye inay ilaalisaa loo keenay war dagoonka kano madi haado hatani sheegas madun ciidanka habaabsadaanay war beesadooda hal la siiyo lacagtooda hal la siiyo lahayni mayninka sheego wayti aan hele war meesha askarta tababarka loogu furay waa magaalada Baydhabo wasiirka gaashaandhigana u furay haro u soco gadaal u soco shacabka ilaaliyaan la baraya war ciidanka wax la baramal diidane wasiirka gaashaandhiga taliye ugu horeeyay ciidanka Soomaaliya magaciisa daad ma yaqaan war yaaya qayla dhaan lama rabe ciidamadu dalkay u shaqeeyaan iyo dadka adinkuna la shaqeeya mushaarjo hal siiyo war waxaan weydiinayaa madaxweyne Waare Yuusuf Dabageed xagee kala marayaan iyagoo baraajil ogaay war Yuusuf Dabageed hali eber ayaa la diray war taa loo diray ma la dheelino ciyaartii dhameed waa uu banaday baa la yiri shabaqii uu qaatay war gudoomiye madaxweyne Waare uu magacaabay Yuusuf Dabageed wuxuu yiri guriga kama soo bixi kartid Yuusuf Dabageed qarafateen war anisiin haaye nohno oo ma ideerasa galmudug oo deerti mayna lataa may iskhilaafay madaxweyne haaf iyo ahlul sunna iskhilaafan leeri warkama dib balay Facebook horta bal iska daawo jiray daawadi Facebook deerti ya yoona jibaab rasmi ah ka biyeen wallahi been weeye waana laga been abuurtay waxba kama jiraan weeye waxaas idii wadwada nala ku soo riixi maayo anagana dan imuraad midna ka malihin maaragta sideena baan u wada shaqaynaynaa bay dhaheen warmada isaaqow xaraf ma dhafiyo u noqotay saas ku fiican tahay war xarfu halka ka qaaday afhayeenkiisi maana waa gudoomiye gobolka mudug mid kalena magacaab war safiirka Soomaaliya Kenya u fadhiya tarsan waxa uu yiraahday xiisada u dhaxaysa labada dal wax saameyn ah kuma yeelan safaaradda madaxtooyada Soomaaliya wax saameyn ah kuma yeelan shacabka bisa la dhibaatay war xirnashaa wadooyinka madaxda dawladda saameyn kuma yeelan shacabka saameyn ku yeelatay war dhacay waxa la yiri aqliga u baan baa la yiri xubin buu kootaaye ruuxii bistiismaan ku yahay una bogsoo waaya bilaash noloshiyo milguhu waa barkumataal bilaawaha intaan sideennay oo boqonta goynaynay ama aan buntuq iyo rasaas bagac ka siinaynay barigiyo intaan xaafadaha beel u dirinaynay xoog soo boqoliyo col baa qaatay badii warantaas dhibaato ee hoob qabtaan digtoor habaaban seeda warintiina waxaad sheegayaan shaqaabuur ma noqdaane shaqooyin ka banaan
soomaaliya baan idin hayaa naxli designer qabyaanad driver laaluush beer kala geyn editor isku dir writer mashruuc taker tuhum believer soomaaliya attacker towdaan nominator iyo colaad combiner war baalga moondanimi ebarnoo dhigdayni jeesha gadiyeede hal habba kama jiro kamana aqaan warbada isaaqow adiga wax ma fahmine weligay ma arkan dagaal la xayisiinoo liya shaqo baran waay anigaba weligay ma arkin tuun shaqo laga dhigaayo warnimada waxaa la yidhi caqligaygu waa kooban yahay amar ilaaheeye niman yahow jacayl iyo qabiil maa la kala daayo intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin war sidaas baana gabay aniga haya fiican ee dad fiican tahay dumarkaba u fiican tahay anigaa fiicanoo waan ku jeclahay waay war gabay gaaban anising haaye maandeeskaw jeceyl ma xuma midkaad jeclaatayse jufada ma ka dhashay war yaaya war waa waala seenandha kala wada waraa jacayl lama kontaroolo yaa idin yiri jacayl la kontaroolo ilcadeeta waan jeclaatay waraa kursigaan jecelnahay kursigaan ku dhaw kurku nagata iimaanka Allah idin garshay